daawade ku soo dhawow channelkeena Sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe saar channelkeena gambalelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلب ونكسر صاحبيال ميل كستو الدنيا كشوفتان كسر وهذا قوانيال كيني جوز كي قلب معيارها وحنا قوانيال كينا كسر قاعدة دورنا شيكوي وين أو كسر بسام كبدا عقتا ورما أرسنال ملقى عقلي بدن يهيو تشيلسي وكا عقلي بدن نيمبا يبسدي زياج إيو تيم وونا نينوحو سوق أوغالي قادة شدا بيبي إيو دافيد لويس وحبان ماشا كيجي دورنا ولي وحنا سوق قاعدة دورنا برشلونة ريال مدريد ولي وحبان كيجي دورنا كدي مركي حالي برشلونة أي كفتي للليغا يدمات كيسون العيالات وحكيجي دورنا خصوصي إيو تاريخي ما أنتو كلون يجي دورنا يو ولا ما عندنا قلت سراب كنا صار channel كسياد وشام وقت كستي ساعات كستا معلومات كوجودن بي كمال دارجا بل واي هيو برنامج كيني ونقول قالي دونايو بل هدبا أينو كور مرنو كحد أرسنال تطبعت كان أدبل لقوم هذه السنة كدي ماركي يقول درويني كسو قارتي كحد كوبدا عقتا مانشستر سيتي تاس waxay keentay in Arsenal la yiraahdo war shaqo marabtaan ficilna waad ka harteen oo Maxamed Maliidin waa ta la yiraahday marka Arsenal in badan David Luiz oo kale waa la eedeynaya walba 7 milyan laba waxa moogtay 7 milyan waxaad ka filaysa ayaa wax iska yar ahba marka waxa la leeyahay ya Arsenal suuqeedu marka la barbardhigto Chelsea maxaa ku soo baxaya waxa lagu leeyahay Chelsea 78 milyan ayay ku wareegtay lagu leeyahay ciyaartooygu kala ah Ziyech iyo Timo Werner Arsenalna lacag 80 milyan ayay ku wareegeen baa lagu leeyahay David Luiz iyo Bebe farqi tawa u dhaxaysa labada ciyaartooy ya Luiz waa ka wareersan yahay oo ilaa hadda qalad after qalad kala gal goal day mid haraanti mid hoos qaado kooxdii wareeri ya ayuu ku jira ninkii Bebe ahana waa un fadaaj inuu marag baan ognahay laakiin wax kale oo saas ma sheego waa keedkii leeyahay iska noqdayo cumad badan ma laha ya marka Arsenal kii kul caqbeesh xataa wax ma noqonay ilaahay amarka war meesha maxaa yaal war habarka meesha yaal maxay tahay in kaar irma taalo warkii ku soo lacag beeleen xataa oo leeyahay Arsenal war banaday cishatay markaan lacag bay bixisay leeyahdina waa kaas wax ma tarayo marka waxa lagu leeyahay Ziyech waa ninkan wada naqaano ee qatarta badan oo laakiin Premier League markuu yimaado arka doona wuxuu la yimaado sidoo kale Timo Werner waa saxiyada Chelsea xilli ciyaareedkan dambe ay ku soo duuli doonto marka waxa leeyahay markaad u fiiriso suuqa Chelsea kan Arsenal waxa leeyahay Arsenal ma kulli baan kaliibsiga lagu leeyahay nimanka ay 80 milyan ka soo bixiyeen waa ka halka 78.6 milyan ay Chelsea ka soo bixisay Timo Werner iyo Ziyech xilli ciyaareedkan bandhigooda la arkayo xilli ciyaareedkan 30 gool buu dhaliyay ciyaartooyga Timo Werner Ziyech caawin badan buu ku farq ku lug leeyahay iyo gool badan buu ku lug leeyahay waa laba ciyaartooy aad u qatar badan baa leeyahay marka Arsenal suuqeedu ka fiirsasho fiican ma laha baa leeyahay Arsenal yaani suuqeedu aad iyo aad baa looga fiican yahay kuwanu Chelsea ayaa ka khibrad badan baa leeyahay dhanka suuqa markaad u fiirsato faloobyada ay la soo wareegeen xilli ciyaareedkan ay ku duulayeen oo wada faloob noqday kulligoodba برشلونة هي ريال مدريد لا ليغا حالي برشلونة واي كوفين او ابرر باي ku dhamaatay reer Barcelona maanta maalin maahan aan oo albaabkii xiraba ay haysata laakiin waxaan maqli jiray ninko jabkiisa ninko farxadiisa waaye ninko kufowgiisa ninko qusulkiisa waaye ya nimankaas xalay kufowgoodu nimankan bay farxadoodu tahay oo madridistu hadda meeshan laga sareeyay 3 dhibcood baa laga sareeyaa still Barcelona balaya sugaysa Atletico Madrid ku jirto iyo Bilbao iyo ciyaaro kale muhiim ah haddaba aanu soo babarigno hadda maadaama labada dhinac saddex dhibcood u dhaxayso habeen dambe oo kale Real Madrid iyagu habeen dambe ay ciyaarayaan Barcelona talaadada marka la ciyaari doonta habeen dambe Real Madrid waxay la ciyaaraysaa Real Sociedad halka Barcelona ay la ciyaari doonto kooxda Bilbao talaadada marka haddaba kulamada guud ahaan u harsan labada kooxood aynu eegno bal adiga fahmi doona kulay meesha shub ah iyo meesha bulukeeti ah yaani labada dhinac kan loo imaam yaani kan ciyaarihiisa iyo xogaa jilacsan marka loo fiiriyo kale okay ba Real Sociedad Real Madrid waxay ciyaarayaan habeenka hadda waxay ciyaarayaan habeen dambe ciyaarayaan habeenka ku siigana talaado Barcelona Bilbao baa ciyaaraya okay kadib Barcelona waxay la ciyaaraysaa Celta Vigo bay la ciyaaraysaa haddana Real Madrid xiligaas waxay la ciyaaraysaa Espanyol bay la ciyaaraysaa Espanyol bay la ciyaaraysaa haddana Barcelona waxay la ciyaaraysaa Atletico Madrid markay Barcelona Atletico Madrid ciyaarayaan Realna waxay la ciyaaraysaa Getafe wala ma sax ma yeelan Villarreal iyo Barcelona markay ciyaarayaan Real Madrid iyo Atletico Bilbao baa ciyaaraya Barcelona Espanyol markay ciyaarayaan Real Madrid Alves baa ciyaaraya Real Valladolid Barcelona markay ciyaarayaan Granada Real Madrid baa ciyaaraya Barcelona iyo Osasuna markay ciyaarayaan Real Madrid iyo Villarreal baa ciyaaraya Alaves markii kulanka 38 Barcelona ay la ciyaarayso Real Madrid waxay la ciyaaraysaa Leganes marka labada dhinac kulamada u harsan waa ka labada dhinac kulamada u harsan waa kaayo kolley runtii haddaanu taageernimo hadii meel iska dhigayo kolley waa la kala jilacsan yahay tusaalaha Real Madrid waxa u dhiman kaliya Real Sociedad Real Mallorca Espanyol Getafe Bilbao Alaves Granada iyo Villarreal
waxaa ugu adag Real Madrid mataqaana kulamada dhan u harsan waxaa ugu harsan kaliya oo yani kulamada u dhiman waxaa ugu shubsan kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad markay la ciyaarayso iyo Bilbao ugu harsan inta Real Madrid way ka xoog badan tahay Barcelona waxaa ugu daran yaa kulankii xalay Sevilla ugu darnaa way ku kufeen wali laba kulan kale ugu sii daran waa maxaa la yiraahday Atletico Madrid iyo sidoo kale Villarreal ayaa ugu daran baa lagu leeyahay xataa Atletico Bilbao meel iska dhiga lagu leeyahay Villarreal iyo Atletico maxaa la yiraahdaa waa iyo Bilbao waa Atletico Madrid iyo Villarreal waa laba kulan kale ugu daran baa lagu leeyahay iska badaf xataa Bilbao marka Barcelona iyo Madrid kulamada baa u dhiman xilli ciyaareedka ka dhiman kulay Barcelona baa ku fooga bilowday xalay waanu arki doonaa hadii Barcelona dib ay u soo kabatay laakiin habeenkii xalay ah Barcelona wax badan ay ugu qalantiin ku guuleystaan ma jirin habeenkii xalay Barcelona waxay ahayd inay isfurdaamiyaan si habeen Champions u noqoto waa inaad si Champions u noqoto waa inaad habeenkii xalay oo kala aad guuleystaa oo aad isfurdaamisaa marka habeenada soo socdan saan baa loo ciyaaraya yaa saan ayaa loo ciyaarayaayo marka saas bay noqon doonaan kulay marka Barcelona waxa uu harsan Sevilla oo xalay la ciyaareen iska tag Atletico Bilbao, Celta Vigo, Atletico Madrid, Villarreal, Espanyol, Valladolid, Osasuna iyo Alaves. Real Madrid waxa uu dhiman Real Sociedad, Mallorca, Espanyol, Getafe, Atletico Bilbao, Alaves, Granada, Villarreal iyo Leganes. Waa ciyaar labada dhinac u kala harsano. Kulay waan arki doonaa wuxuu xilli ciyaareedku ku dhamaado horyaalka kubadda cagta Isbaanarka ee La Liga. Okay waa yahay wali barnaamijkeeni baan ku guda jirnaa kulay marka Barcelona maanta uma ahan oo maalin wanaagsan uma ahan oo maalin Barcelona la kurkurayo oo la leeyahay waa sanad gaar arma la idinka qaadaya arma horyaalka lumin doontaan marka Barcelona waanu arki doonaa wuxuu horyaalka ku dhamaado laakiin ciyaartooyga Barcelona niyad wanaagsan ma dareemayaan markay arkaan kulamada Madrid buluketiga u dhiman iyaga kulamada shubka u dhiman wax isqaadan kara ma aha marka kulay yaa arbaantaan oo albaabkii xira weeyaan bal waa yahayo xusuusi iyo taariikhiya maanta oo kale hadaynu eegnana war ninka la yiraahdo yaa non flying Dutchmanka ayaa maanta ay tahay maalinkii uu Arsenal loobayo war ninka waa Dennis Bergkamp mid kamid ah laacibiintii ugu fiicnaa ee taariikhda Premier League soo maray waana Hollandaise aad iyo aad u khatar badnaa buu ninka ka ahaa haddaba ninka lagu magacaabo Dennis Bergkamp ayaa maanta oo kale sanadii 1995 waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxaana kala wareegeen kooxda Inter Milan iyagoo ku qaatay lacag dhan 7 milyan mar beriga 7 milyan lacag bay ahayd 7 milyan saashantii 7 milyan lacag bay ahayd maanta beriga yaa haddaba waxa uu ciyaartooygu ku qaatay Arsenal 11 xilli ciyaareed oo guuleystay isagoo kooxdu la qaaday 4 jeer ciyaaraha FA Cup-ka iyo 3 jeer Premier League waxa uu ahaa nin aad u xirfad badan oo Arsenal laga jeclaa marka Bergkamp waa maalinkii uu Arsenal loobay ninkan nin weyn buu ahaayo dhan kale xitaa maanta oo kale 1997 waxa kaloo dhacay heshiis kale weyn oo kooxda Inter Milan ayaa Ronaldo el Fenomeno waa Ronaldo weynaa ee Brazil ee Burna waxay kala wareegeen kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxayna ku qaateen lacag dhan 19.5 milyan ogow el Fenomeno 99 kulan buu Barca ugu dhaliyay 59 gool marka Narasuri buu ku birayo yaa oo Inter Milan buu aaday nin weyn buu ahaa ninka kaayo waqtigiisa dhaawac baa dilay mooyaane laakiin waxa maanta loo garanaya inuu yahay ninka ugu fiicnaa ee soo maray kubadda cagta ugu fiicnaa baa lagu tiriyaa loo jiilka maanta jiray Messi iyo Ronaldo laakiin tababarayaasha weyn waxay ku leeyihiin ma gaari karaan Ronaldo Fenomeno maxaa yeelay Fenomeno isagoo dhalin yar sinaba loo celin kari waayay waxaana uu ahaa nin gool hayaasha khaliifi jiray oo uu wareysan jiray isagoo ayagoo dhulka dhigina gool kama dhalin jirin halka maanta ciyaartooyga la gagableynaya markii gool kubadda la hortaagayin asagoo gool inta loo taga ayuu khaliifi jiray kadibna goolka dhalin jiray marka maanta oo kale Ronaldo Fenomeno ayaa Barcelona si lama filan ugu tagay kaliya wax yar uu la joogay ayuu Barca isaga baxay isagoo ku biiray kooxda kubadda cagta ee Inter Milan waxa ayana maanta loo wada hambaleynayaa legendiga weyn ee kooxda Chelsea waana macalinka hadda Chelsea maamulaya ee lagu magacaabo Frank Lampard oo Frank wuxuu noqday maanta 42 sano jir buu noqday ka war Frank Lampard waa ninka taariikhda ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta ee Chelsea waa ninka ugu goolasha badan weeyaan taariikhda all time kooxda blue marka sidoo kale ogow waa ciyaartooyga kaliya ee qad dhexe ah oo taariikhdu ka dhaliyay Premier League 150 gool iyo wixii ka badan khad dhexe Premier League ma soo marin oo 150 gool ka badan ka dhalay horyaalkan waliba waa ninka 3 jeer ku guuleystay ciyaaraha kubadda cagta ee Premier League sidoo kale waa ku guuleystaha ciyaaraha Champions League Europe oo dhan marka
Frank Lampard maanta waa loo hambalyeynaya waa nin legend weyn hadda wuxuu ku qabsaday waayihiis tababarnimo ayuu doonaya inuu waayihiis ciyaartoy wuxuu ku qabsaday buu doonay inuu hadda ku qabto ciyaaraha kubadda cagta waayihiis tababarnimo marka Frank wuxuu sanadkan Chelsea u dhisay si aan caadi ahayn isagoo doonaya in Chelsea uu la qaado ciyaaraha Premier League isagoo macallina doonaya sidoo kale inuu Champions League ku guuleysto uu doonayaayo Ziyech iyo Timo Werner iyo ciyaartoy kale oo weyn ayaa kooxdu yimaaday still ciyaartoy kale oo weyn ayaa la filayaayo markaas Frank toddobaadkan bay Chelsea dib ugu soo laaban doontaa ciyaaraha waana la eegaya waa maalinta Axadda oo Blue ay ciyaari doonto Manchester baa xalay kuftay Chelsea waxay isku day doontaa inay booskeeda Champions League u dagaasho oo ay ka ilaashtaan nimanka United marka Frank Lampard waxa leenahay hambalyo legend weyn buu weeyaan ninka kaayo cimaamadiisu aanu la haysan karin hubanayaalkeeni waa naga inta nabadgelyo